بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo nafaqada casharkan wuxuu ka mid yahay casharadeenii taxanaha ahaa ee aynu soo gudbin jirnay usbuuc walba mar hadduu alla idmo maanta mowduuca aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye mowduuc dad badan ay xaqiiqdii weydiiyeen mowduucaas oo mowduuc ballaaran waxaan jeclahay mar dhow inaan buug ka qoro laakiin waxaan rabaa si dulmar ah in aan idinla wadaago casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay 5 sharci oo ka mid ah sharciyada la yiraahdo sharciyada cuntada 5 food rules marka waa 5 sharci oo ka mid ah markaad cuntada cunaysid sharciyada laga rabo in aad raacdo waxaan kaa rabaa mar walba aad cuntada cunaysid in aad cuntada cunaysid ay noqoto cunto run ah cunto real waxa waaye cunto natural foodska ayaa laga wadaa real foodska marka waxa waaye cuntada cunaysid mar walba waa inay noqoto cunto run ah cuntadaas macnaha cuntooyinka meeshaan ka baxayo waxa waaye cuntooyinka processka ah meeshaan ka baxayaan cuntooyinka refineka ama soo gacanta labaad soo marto ama la bedelana way ka baxaysaa cuntooyinka boksada mataqaana la geliyana way ka baxayaan cuntada aad cunaysid waa cunto in ay noqoto run ah oo la taaban karo oo dadku dhan isla yaqaanaan oo dhulka ka soo baxda waa in ay noqoto cuntadaas cuntooyinka ilaahay sameeyay oo yiraahday huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamii'a cuntooyinkaas waa cuntooyinka runta ah ee asalka ah ee dabiiciga ah marka sharciga koowaad mar walba waxaad cuntaa cuntooyinka runta ah ee dabiiciga ah ee aad haysatid available ku ah sharciga labaad waxa waaye ha cunin cuntooyinka lagu sameeyo mashiinka ama cuntooyinka mashiinka lagu sameeyo marka sharcigan waxaa la yiraahdaa do not eat machine made foods ha cunin cuntooyinka mashiinka lagu sameeyo cuntooyinkaas waxaa ka mid ah cuntooyinkan fast foodska lagu sameeyo sida McDonald's oo kale wadanka aan joogno ama cuntooyinka sida mataqaanaa baradhada saliidda lagu shiilo oo kale iyo ama cuntooyinka boksada ku jira way soo hoosgalayaan cuntooyinka waxaa soo hoosgalaya mar walba saliidda badan ay ku jirto mashiinka lagu soo sameeyo oon qofna gacantiisa aan kusoo sameynin qof bani aadan aan gacantiisa aan kusoo sameynin ha cunin cuntooyinkaas mar walba in aad ka tagtid ayaa loo baahan yahay nacnaca yaryar ee caruurta la siiyo ayaa ka mid ah candiga waxyaalaha yaryar oo mataqaana mar walba lagu soo duubo mar walba mashiinka uu soo sameeyo ayaa ka mid ah cuntooyinka noocaas oo kale ah in aad iskaga tagtid ayaa fiican sharciga saddexaad ee food ruleska 5 sharci ee maanta aan ka hadlayno waxa waaye sidoo kale sharcigan aad ayuu u adag yahay ha cunin cuntooyinka qofka kale uu soo sameeyay ilaa exception baa ku jira meesha waa laga reebay cuntada adiga aad samaysatid mooyaane iyo cuntada ay kuu samayso ama xaaskaaga oo kale ama adigu xaaskaaga aad u samaysid sababta ugu weyn ee sharcigan ku jira waxa waaye waa in aad ka dheeraatid cuntooyinka maqaaxiyaasha oo kale aad ka soo iibsanaysid sababtoo ah markaasoo kale cuntooyinkaas ma garan kartid qiyaasta xaqiiqdii inta meeqo qaado cusbo ayaa lagu daray tusaale ahaan oo kale meeqo saliid ah meeqo koob saliid ayaa lagu daray tusaale ahaan oo kale sonkorta intee in la eg ayaa ku jirta tusaale ahaan oo kale marka haddii xataa cuntada uu soo sameeyay qof kale oo adigu aadan garanaynin in aad iska aayeertid ayaa fiican soo kale tan waxaa soo hoosgalaysa qofka in uu ka dheeraado in uu mar walba ka soo cunteeyo banaanka gurigiisa waxaana had iyo jeer fiican in uu gurigiisa ka cunteeyo cunto isaga uu yaqaano cunto waxa waa isaga uu karsaday qiyaastiisa uu yaqaano tan lacagtaadana way ku ilaalinaysaa oo way ku safgareynaysaa tan labaadna cunto fiican oo caafimaad leh oo healthy ah ayaad cunaysaa sharcigan sharci muhiim waaye yaan loo daymo la'aan sharciga afraad waxa waaye weligaa ha cunin cunto macaan ha ka horeysiin cuntada
caadiga iyadoo kuu taalaha ka horeysiin. Sharcigan wuxuu kuu sahlayaa muhiimadda uu leeyahay waxa waaye in aadan weliga aadan ka horeysiin cunto macaan cuntadii kale ee aad cuni lahayd iyadoo ay kuu taalo kama hormarinaysid. Marka never eat desserts before eating food. adoo cunto caadi ee kuu taalo wax macaan tusaale ahaan oo kale qadaa kuu taala haddii aad aragtid cake ama haddii aad aragtid mataqaana xalwad ama haddii aad aragtid wax kale oo macaan oo buskut oo kale ama wax macaan weligaa ha ka hormarin. waxa macaan aad cunaysid mar walba waxaad ka gadaaleysiinaysaa cuntadii kale ee ku hor taalay markaad cuntid ayaad cunay. sababta waxaa waa adoo gaajeysan lama rabo cuntadii macaaneed inaad hor cuntid waad ku xanuunsan kartaa waxyeelo ayaa kugu dhici kara. marka mar walba waxaad dambeysiinaysaa cuntada macaan. sharciga shanaad ee ugu dambeeya waxa waaye eat only waxaa kaliya aad cuntaa marka aad gaajeysan tahay. muhiim waaye marka aad gaajeysan tahay kaliya cunto cun adigoon cuntadii u baahneen ha cunin. tanna waxay kuu sahlaysaa tusaale ahaan oo kale dad badan baa waxaa dhaca waxay arkayaan qof saaxiibkood isagoo wax cunaya markaasay ku dayanayaan qofkii saaxiibkood ahaa ama meel xafladay imaanayaan gaajo ma hayso cuntadiiba isku dirqinayaan. tanna waxay keenaysaa in markaas culeys aadan u baahnayn oo laga maarmaan oo aad mataqaanaa ka maarmi kartid uu jirkaaga uu saarmo. marka waxaad cuntaa cuntada kaliya markaad gaajeysan tahay. haddii aadan gaajeysnayn wax cuntaha cunin. shantan sharci cuntooyinka la yiraahdo waan ku sii dari doonaa iyagoo badan hadduu alla idmo laakiin intan waa bilaaw. waxaan rabaa insha Allah in aad ku dhaqantaan dadka kale ee daawanaya aad usii gudbisaan idinkana wax badan inaad ka faa'iidaan ayaan jeclahay. casharkeena maanta intaas ayuu noogu ekaanayaa. waxaan isleeyahay xaqiiqdii cashar muhiima waaye waan sii gudbin doonaa insha Allah casharada noocan oo kale ah. waxaan jeclahay idinka rabaa in aad casharkan la wadaagtaan dadka kale ee saaxiibada aad tihiin. intaas kaga arki doono casharkii xiga waxaan kaga tegayaa sidaas salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.